رئيس الوزراء حكومة الفدرال كالصومالية مدني حسن علي قيري ayaa furka kadib waqti la qaatay shacabka magaalada isagoo ka xog waraystay xaaladooda gaarka ah. Ra'iisul Wasaare Khayre ayaa dhammaan dadkii uu la kulmay waxa uu muujiyay sida uga go'an tahay dhageysiga talooyinka iyo tusaalooyinka shacabka si loogu kaabo qorshayaasha waaweyn ee dawladdu ku horumarinayso dalka iyo tabashooyinka laga maarmaanka ay doonayaan inay dawladdu wax ka qabato ee muhiimka u ah bulshada Soomaaliyeed. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer Yarisow ayaa shacabka reer Garowe uga mahad celiyay soo dhaweynta Soomaaliyeedsan ee u muujiyeen ra'iisul wasaaraha iyo xubnihii ka socday dawladda federaalka Soomaaliya. Aan ku tahay soo dhaweynta iyo martigelinta iyo sida ay mar walbaba midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed astaan ugu yihiin. runtii taas waa mid aan ka mahad celinayno maaha markii ugu horeysa Garowe nimaadno laakiin waa wax soo jireen ah oo runtii la oran karo Soomaalinimada iyo wadajirkaba meelaha ay ka muuqato. sidoo kale waxaan kaaga mahad celinaynaa sharaftan ra'iisul wasaaraha iyo wasiirada federaalka joogana sharaf ay u ahayd maalmahan inay Garowe joogaan ay arkaan oo shacabkii halkan